horta waxaan ahay anigu hooyo Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee Kenya xagar dheer gaar ahaan kan ku xagar dheer waxaa la yiraahdaa arday Garas Cali Muuse Cawl arday jaamac Garas Cali Muuse Cawl waxaa iga maqan gabadhayda oo ayadoo 6 bilood jirta oo dhintay aabaheed oo agoon ah kadibna ayadoo 2 sano jirta ayaa waxa iga qaadatay ayeedeed ayada oo itiri waxaan ka fiirsanayaa wiilkayga oo uradkayga waa dhalasaan ka fiirsanayaa aniguna waan siiyay oo ismaan lahayn meel baa laga geynaya adiga ayaa lagu korinaya ayaan islaha mar kale ayaan waxaan ugu tagay magaalada Nairobi ayadoo ay joogto ayadoo 5 sano jirta 95tii waan ka soo noqday dib ayaan anigu Soomaaliya ugu noqday kadib waxaan maqlay inay reerkii gabadhii la tageen ay la aadeen Mareykanka wax xiriir ah oo ila soo sameeyeen ama aan gabadhayda ka helayna ma jirto sida ayay hadda wali iiga maqan tahay gabadhayda waxa la yiraahdaa Riwaan Cabdiqaadir Maxamed Waali ayeedeedii ka haysatay waxa la yiraahdaa Jamaacad Gurxan Muuse Cawl inkastoo ay dhimatay 2010 Allah u naxariistay eedooyinkeed waxa la yiraahdaa Yuri Maxamed Waali Deeqa Maxamed Waali Nasra Maxamed Waali iyo Ruwaydiya Maxamed Waali dhamaantood waxay ku wada nool yihiin Mareykanka gobolka Minnesota kadib waxaan maqlay gabadhii markay weynaatay inay reerka ka tagtay haddana wax xiriir oo aan ka hayo ma jirto ayadina ilama soo xiriirta ayaguna ilama soo xiriiriyaan marka gabadhaas qabiilkeedu waa Majeerteen Umar Maxamuud reer Khalaf reer Daad Khalaf reer Cilmigooco ayeedeed waxaa la yiraahdaa Jamaacad Gurxan Muuse Cawl waxay ku wareejisay gabadheeda Yurub Maxamed Waali oo gabadhayda eedo ah ayaduna ay dhashay ayada ayaa haysay oo gacanta ku haystay ilaa markay habartu ka dhimatay ilaa ay qaan gaarto ay ka tagtay ayada ayaa haysatay ayadaana mas'uul ka ahayd oo haysatay ilaa ay ka tagtay ayada ayaana diiday inay inna la xariirsiiso inna u sheegto kullu inta kale oo walaalahoodana oo aan hadda magacyadooda sheegayna way isla ogyihiin waa wax xiriir oo ayagu ay go'aan oo isla gaarin kulligood macalooyado ma garanay sababtoo ila soo xiriirsiin waayeen ayaga laftooda aan wax telefoon ka helin dadkoodan qofkan u diraayo wuxuu yiraahdaa dadkaas telefoon kama hayno mana ayno ogola telefoonkooda inay siiyaan gabadhina inuu tusaan noo ogola saas ayaana wax xiriir ugu haynin ayagana ula xiriirin gabadhina aysan ila soo xiriirsin gabadhayda waxaan maqlay inay ku socoto agoon iyo rajo balse dad ayaan intaaba ka maqlay in magaca laga bedelay agoon iyo rajo ay ku socoto ayaga xataa markii dambe oo qaan gaartay oo sharcigeeda qaadatay inay ka tagtay oo la joogin balse kulay ay waa dad isla xiriir way isla leeyihiin way isla xiriiraan marka dadka Soomaaliyeed oo muuqaalka duuban doona ama ehelka ama ayada yaqaan ama aniga yaqaan waxaan ka codsanayaa inay ila soo xiriiriyaan gabadhayda haday ayadu aragto ama ay garanayso ama ay dareento oo ilaan eedooyinkeed iyo ayeeyda wixii bay garanaysaa hadayna aniga ay garanaynin inay ila soo xiriirto waan ka codsanayaa